dowladda waddanka Mareykanka oo ka hadashay duqeyn ay ka geysatay dalka Soomaaliya bartilmaameedyo ay ku leeyihiin al-shabaab iyo dad meydkooda laga helay xabaal wadareed lagu aasay magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee waddanka Kenya waxa ay isku soo dhaweeyay Maxamed Ciise Maxamuud bariga degmada Mandera ee dalkaasi Kenya siyaasiyiintu waxa ay sheegeen inaysan wali hubin cid rasmiga ah ee ka dambaysa xabaal wadareedkan loo sameeyay ilaa 4 ruux oo la aaminsan yahay in Soomaali ay yihiin kuwaas oo lagu tuhmayo inay ka dambeeyaan ciidanka ammaanka oo maalmihii la soo dhaafay joogay deegaankaasi meedadka 5 qof oo mid ay haweenay ay tahay ayaa laga helay deegaanka Bambo oo ku taala duleedka degmada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari sargaal ka tirsan saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka deegaanka ayaa saxaafadda u sheegay in dadkaasi qaarkood madaxa laga toogtay kadibna hal meel lagu wada aasay mid kamid ah ehelada dadka la helay meedadkooda oo lagu magacaabo Cabdi Caraaya ayaa sheegay in walaalkiis oo la goobay muddo dhowr maalmood ah oo kamid ahaa dadka meedka goobtaasi laga soo saaray ku jiray dhinaca kale dowladda Mareykanka ayaa weerarkii labaad oo duqeynaha oo ka dhana al-shabaab ka fulisay gudaha dalka Soomaaliya tan iyo xilka inta uu hayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ka oo bishii Maarch ee sanadkan soo saaray in wadankiisa uu kordhin doono weerarada ka dhanka al-shabaab oo ka geysanayo gudaha dalka Soomaaliya afhayeenad u hadashay Pentagonka Mareykanka oo lagu magacaabo Audrey Harris ayaa waxay sheegtay inay qiimeyn ku sameynayaan duqeynta oo ka dhacday koonfurta dalka Soomaaliya iyo dadka waxyeelada ay ku gaartay waxaana duqeyntan ay dhacday abaara 2:30 daqiiqo maalintii Axada taa oo timid 3 bilood kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka uu cadeeyay inuu qaadayo duqeymo ka dhan ah al-shabaab oo ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya Maxamed Ciise Maxamuud Somali Cable TV Muqdisho